badan ayaan suxbad la soo yeeshay majaalistoodii 8 mas'ala ayaan ka soo faa'iideystay buu yiri iga bara inankaygiyow hadaad salaada aad tukanaysana qalbigaaga ilaali dad hadaad la fadhidana carabkaaga ilaali cunto hadaad cunaysana calooshaada ilaali aqal dad hadaad gashana indhahaaga ilaali buu ku yiri hadaad salaad tukanaysid qalbigaaga ilaali oo qalbigaagu yuunan meel kale u jeesane qalbigaagu salaada dhexdeeda ha ku mashquulo الله عز وجل الله هور جوجتو قلبك كون مشغولي دad hadaad la fadhidana wuxuu ku yiri carabkaaga ilaalso aqal dad hadaad gashana indhahaaga ilaalso cunto hadaad cunaysana ma aragtaan calooshaada ilaalso labana waliga ha iloobin buu ka yiri labana ha xasuusan labada uu ku yiri ha xasuusan waa labadee dadka wanaaga aad u samaysid waliga ha xasuusan buu ku yiri dhibaatada adiga ay ku geystaan ha xasuusan buu ka yiri اثنان لا تنساهما واثنان لا تذكرهما بكري لبا ولغا حسوسا هبا هذا القادم با احسانك الى الناس واساءتهم اليك وناغ ددك ادو سمينيسد ولغا حسوسا هداد مد اد وناغو سمينيسد الهي درتي ugu samee hadaad cilmi barisid ilaahay darti u bar hadaad ihsaan sameynaysid ilaahay darti ugu samee hadaad u shafaacad qaadaysid ilaahay darti ugu shafaacad qaad hadaad wax dayminaysid ilaahay darti u daymi waxa dadka u qabanaysa wanaaga marka u horeysa waa inaad u qabataa alla darti dhibaatada dadku ay kugu sameeyaan waliga xasuusan buu ka yiri iska ilow waxa hata salimu sadri qof qalbigiisu mar walba uu yahay nadiif dadka ihsaanka aad u sameynaysid hadaad mar walba aad dadka ka sugta inay abaal ku celiyaan waxaad noqonaysaa inaad waxaad halis u tahay inaad ku dhacdo mannaan galad sheegtay inaad noqoto halis u tahay galad sheegtana waayo oo ilaahi saddex waa kii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ilaahay maalinka qiyaamaha saddex la hadli maayo xagoogana ilaahay daymooni maayo dambina ilaahay ka dhaafi maayo عذاب كلول أو درنا ويليهين صدح جرب نبي إريدا كعليي أبو ذر الغفاري أيايري خابوا وخسروا منهم يا رسول الله ويهوجين وين خسارين كواسي أييه نبي الله نوشك مرقاب النبي يقول المنان وكذاتك قلت شيكت أبو رسول كيري قلت شيكت قفك مر والبدت كيدا ده حسن كوسمي يعني حابن كو قبتي أنا مقال هذا كسوق لي مثل كلها يا تكلمت بقول أنا قف كديجا كان ما أدري كيف دتك أنا قف كديجا بيقول عمرك ورا دمير بو أمس داير ليش يعني كلام هذا الير أو بسيط قف كسيدي بيروق صباحا يا خطرنا وكوجل يا قف أنا سمي أنا وحكار دقي أنا دتك كوجو دري هذا أنا جرين ما بجرتين ماي وين هذا حاتا مركو أوه سبع هذا مدة وحقوق بنا سيله درت وحقوق أبو لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إخلاصك وعجيب الله ينسي إخلاصك من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه حديث القدس إلهي وكيلها من عمل عملا قفك عمل سمايا دونك دوشيدا عمل كاسو سمايين أنيق عدك يقول لريبا إلهي إيه شريك يلي عمل كيسا إيه شرك كيسا قيامها وأنوغتك أبا إلهي يلي صدح دقفة وقوه الرئيسة والنبي صلى الله عليه وسلم أن نارت اللي توري دوننا وصدح لي وعالم وتاجر صخيها هي نن مجاهدة هاي الله ملين ينو دينو دنتي صدح عمل هو وين بين الله إيمانا يان كانوا مجاهد بوها كانوا وحوها عالم بوها ومدوا علم جبر يقاربوها كانوا وحوها ما ركتان الصخيم مالقبين أيوه هاي حوله سوب حجري صدح دا عمل اللي مادن إلهي هرتي صدح دا عمل بوحة كلنا ما ركتان الشرك بكلنا لأن مركز إلهي أرنا يا أدو وادو دمتي واد صور دمتي لكن أنا قدرتي وماد صور دمني إن لقاير هذا هبل وانين دقاليها أيادو صور دمتي وانا اللقو يري هذا كنا قارب هذا هاي القرآن أخرس في عن أما واعد ومدى وعدي أياد هاي ودتكو أي هذا الجسد جيستام وعدك مركز جديد يسد ومدى وحوش يجسام ما دوحبر يسدنا أنا قدرت أمات بريني هبل وانين عين كاسو ومدى وحوش يجو عرب فصيح فصيحي يا لقول يا هلا قول إذا هذا إصلاحي
kana waxaa la odhanayaa adiguna nin maalka bixiyaad ahayd oo meel kastoo khayra xoolaha waad ku bixinaysay hadday masaajid tahay hadday madaaris tahay hadday aytaam tahay laakiin waxaad u bixinaysay waa hebel waa sakhi hal lagu yidhaahdo saddexdiinaasi waa laynii yidhi adduunka dusheediiye agtayda waxaad ku leedihiin waa naarta ku tuura la odhan doonaa xadiidka Abu Hurayra radiyallahu anhu markuu sheegi jiray uu ooyi jiray uu kici jiray uu dhici jiray waa la kicin jiray uu ooyi jiray uu kici jiray markay naftu ay ka bixi inay ka baxdo halis u gaadho ayuu xadiidka nabigu ka maqlay uu sheegi jiray lillaahi wa inuu hada qofka muslimku waxa dadka u qaban ilaahay dartii ugu qabo waa inaad ku doontaa camalkaaga aakhiro camalkaaga adduunyada ha ku doonin Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alayhi ayaa lagu yiri manin naas dadi ayay yihiin noo sheeg markaasuu al-ulama dad hadii weydiiseen dad waxa weeyaan waa culimada waa dadka ilaahay cilmigiisa yaqaana waa dadka ilaahay yaqaana aakhirada yaqaana ee shariicada islaamka yaqaana dadkaas uun badada markaas lagu yiri famanil muluk kuwa hadii aad dad ku sheegtay hadana boqoraduna ayay yihiin markaas yiri az-zuhad waa dadka zaahidiinta adduunyada ka zaahiday ee adduunyada badbadkayga waxa dul yaala waxba aanan u arkayni markaas lagu yiri ma tawaaducana bal noo sheeg tawaaduc muxuu yahay markaas lagu yiri at-takabbur ala al-aghniya dadka hantiilayaasha oo agtaada aan waxba aanan u waxba aad u arkin oo agtaada qiimo aanan ku yeelan taas tawaaduc la yiraahdaa buu ku yiri markaas lagu yiri faman as-sufaha dadka sufahaduna ayay yihiin man gaabka aqliga aan lahayn wuxuu alladhi yaakulu diina bid-dunya waa qofka magac diineed xambaarsan laakiin magaca diineed haddana dadka adduunyo kaga doonay wajigiisa diineed adduunyada uu isticmaalaya kaasa safiiha buu yiri fanuhsin dadka haddaan wax u qabanayno haddaan wax u sheegayno haddaan wax barayno haddaan ihsaan u sameeyno haddaan infaaqinayno waxay naga noqonaysaa waa ilaahay dartii waxa kale uu ku yiri ninkaasi inankiisa markuu la dardaarmayay dhibaatada dadku ay adiga kugu sameeyaana ha xasuusan buu ka yiri waxaad noqotaa qof saliimu sadri qalbi fiican noqo qalbigaaga waa inuu ahaada nadiif muuminka qalbigiisu غل iyo xasad iyo buqdi waa inuu ka ahaada saliim waakii nabigu lahaa xadiis fi sunan nin ahlal janna inagu soo bixi doona nin saxaabada kamida soo galo soo weysaystay saxaabadu ninkii bay fiiriyeen haddana maalin labaad buu nabigu nin ahlal janna inoo soo gali doona isla ninkii baa soo galay haddana maalin saddexaad buu nabigu nin ahlal janna inoo soo gali doona isla ninkii baa soo galay Abdullah ibn Umar ibn Aas radiyallahu anhuma ayaa intuu socday buu ninkii marti u noqday wuxuu yiri aabahay baan isa soo diinay in marti qaad markaasuu marti qaaday aabihiina ismay soo diideen wuxuu rabay kaliya inuu arko bal ninkani acmaasha uu ku mutaystay inuu noqdo ahlal janna ha soo aragtid buu ku yiri ha soo aragtid buu islaha iyagu khayrkay ku kala dayanayeen khayrkay u kala badinayeen khayrkay iskaga dayanayeen inagu laakiin maanta maxaan ku kala dayanaa